السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا أنجعلها يمروا بوقت جوكتان waxaan rabaa inaan maanta wax yar ka dhaho kulanka adag ee u dhaxeeyo kooxda kubadda cagta Arsenal iyo kooxda Man United. Haddii aad ugu cusub tahay fadlan page-ka follow noo dheh siina share garay si asxaab fara badan ugu gaaro. Waxaa maanta jira kulan adag oo u dhaxeeyo kooxda kubadda cagta Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Man United kaasoo ka dhici doona Emirates Stadium. Waa kulan ka tirsan horyaalka Premier League. sida wada ogsoonahay Arsenal waxay hogaaminaysaa horyaalka Premier League, Man United waxay ku jirtaa kaalinta afraad. Man United waa naadiga kaliya Arsenal ka soo badiyo season-kan. Arsenal maanta waxay doonaysaa inay disho kooxda kubadda cagta Manchester United. waxaa jira fursado badan ay ku kala badin karaan labada kooxood. Arsenal oo kale waxay aad uga xoogan tahay xagga qadka dhexe. sida wada ogsoonahay kooxda kubadda cagta Manchester United waxaa ka maqan Casemiro oo aad muhiim u ah kooxda kubadda cagta Manchester United kaasoo qaatay 5 jaalle. sida darteed kulanka maanta uu seegi doona Casemiro. Arsenal waxaa la filanayaa inay maantay ciyaaryahankeeda cusub Trossard kaas ay ka soo wareegto kooxda kubadda cagta Brighton. ciyaartan waa ciyaar aad u adag, cidna lama dhihi karo way badinaysaa, cid kale ka awood badan ma jirto, laakiin waan arki doonaa wixii ay ku dhamaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.